Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta waxaan ka hadli doonaa sideen u rumayn karaa riyadayda. Waxaad tahay qof aad iyo aad u adag. Riyadaada iyo hamiga aad doonayso inaad samayso waad gaadhi kartaa. Si aad u gaadho, haddaba maxaa lagaaga baahan yahay? Waxaad u kacaysaa oo aad u dadaalaysaa oo dhididku kaaga imanaya oo halkan aad ugu jirtaa waa guul. Si aad u noqotid qof magac leh, si aad u noqotid qof qiimo leh, si markaad adduunkan uga tagtid aad wax uga tagtid. Ma aha in aad maalayacni iyo hurdo waqtiga aad ku lumiso. Ma aha in waqti badan uu kaaga lumo meelaha la fadhiisto iyo meelaha lagu qaxweeyo. Inaad waqti ku lumiso waxyaabo aanay dad kuugu jirin. Sideedaba nolosha ayaa laba qaybood ah: qof positive u fikiraya iyo qof negative u fikiraya. Mar walba waa inaad ahaataa midka positive u fikiraya. Waa inaad tahay qof dadaalaya. Waa inaad tahay qof naftiisa horumarinaya. Waa inaad tahay qof aan isdhiibaynin. Qof kasta u dareema wanaag hadduu haysto family fiican, lacag fiican, markaa xidhiidh fiican. Laakiin mir ayaa jirta nolosha hoos kuu dhigayso, kadib aad tiraahdo aniga nasiib ma lihi. Waa khalad taasi. Maaha inaad tiraahdo nasiib ma lihi. Laba mid baa markaa kuu bannaan: inaad noqotid qof failure amba inaad noqotid qof successful ah. Sidaa daraaddeed, qof dadaalaya oo guulaysanaya iyo markaa qof kuu daraysanaya. Haddii aad ka fikirto caadooyinka xunxun iyo dhaqannada xunxun iyo balwadaha xunxun, haddaad dib ugu laabatid oo aad isdhiibtid, waxaad noqonaysaa qof kuu daraystay. Haddiise aad noqotid qof dhabar adayg leh oo dadaalaya oo guul ku dadaalaya oo doonaya inuu naftiisa hormariyo, waad samayn kartaa. Waddadii guushina dib baad ugu soo laaban kartaa. Markaad ogaatid qof u yimid inuu adduunkan wax ka beddeli karo, markaa ayaa tahay qof nolosha fahansan dhammaanteed. Waxaan leenahay wax wanaagsan, wanaaggaas oo inagu dhigaya mas'uuliyiin, oo inoo horseedaya inaynu ku dhabar adeegno riyadeena. Waxaan kaa dhigayaa inaad tahay qof aad iyo aad u adag oo riyadiisa ka rumaysteega haddii aad samaysid tallaabooyinkan soo socda. Tallaabooyinkan aan kuu sheegi doono waxaad ku gaadhi doontaa oo aad ku xaqiijin kartaa riyadaada amba waxaad doonayso. Waa inaad iska ilaalisaa waxyaabaha amba caadooyinka xunxun ee markaaba hoos kuu dhigaya, sida balwadaha aadka u aafada ee dhalinyarada hoos u dhigaya, sida barnaamijyada aadka u xunxun ee qofka ku kalifaya inaanu ka fikirin noloshiisa, sida daraagiska ama daraagis nooc kastaba ha ahaato. Waayo qofku intuu daraagis ka qabo, maskaxdiisa amba caafimaadkiisa ayaa fiican. Waxaanu ku fikiri karaa markaa guul, balse hadduu galo badweyntaas way adag tahay siduu uga baxo. Nolol xun ayuu qofkaasi uu gelayaa. Marnaba ha isdhiibin. Ma aha intaad meel fadhiisatid tiraahdid waxbaan samayn karaa. Waa inaad haddii aad guuldareysatid dib u soo noqotaa si aad guusha aad u gaadho. Waa inaad garaacdaa albaabka guusha si lagaaga furo. Waa inaad u orodaa aroor iyo habeen maalin sidii aad u gaadhi lahayd guusha. Ku soo noqo waddada guusha. Haddii aad ku dhacday, dib ugu soo laabo. Waad awooddaa inaad samaysid. Waad kartaa inaad samaysid. Qof kaa celin karaa ma jiro. Guusha waad gaadhi kartaa. Waxaa lagaaga baahan yahay dadaal iyo inaad waddada guusha aad ku soo laabatid. Waad samayn kartaa. Waxaad tahay qof aad iyo aad u adag. Waxaad og tahay inaad tahay qof samayn kara arrintan. Waad samayn kartaa. Come on, you can do. Come on guy.
ma aha inaad samaysid waxyaabaha dadka ay kugu sheegayaan. Qaarkood ay ku leeyihiin waxaas ayaa fiican oo waxaas aanu fiicnayn. Waxa wanaagsan waa inaad samaysaa maadaama aad tahay adigu qof Afrikaan ah. Waxba lama samayn karo waa inaanay maskaxdaada gelin, waayo waxaa jira Afrikaan badan oo maanta dunida horumar ka sameeyay. Ma aha dad la oran karo Afrikaanku ma aha dad liita ama dad hooseeya. Waxaa taa ku cadaynaysaa ragga hore wax u soo qabtay Afrikaanka. waxaa ku cadaynaya sida madaxweynaha Barack Obama. intaasuu nagu eegay mawduucu. fadlan ha ka iloobin channelka subscribe, like intuba. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.